haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro kombeelka furo wararkii ugu dambeeyay xildhibaanad Ilhaan Cumar oo sheegtay si rasmi ah inay u kala tageen saygeeda isla markaana maxkamadda sare ee Minnesota geysay dacwadda furitaanka hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya warbaahinta Soomaaliya iyo warbaahinta caalamka ayaa hadal hayo inay arrintii furitaanka ay sax noqotay dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo 73 milyan oo dollarka Mareykanka gacanta loo geliyay hase yeeshee sida loogu talagalay ma isticmaali doontaa mase waxay ku qaban doontaa dadka ka soo horjeeda inay ku fangareyso dhinaca kale xiisad xooggan oo culus ayaa ka taagan xilka qaadis laga sameeyay degmo kamid ah magaalada gobolka Hiiraan degmo kamid ah halkaasina oo khilaaf xooggan oo ka taagan yahay warkaasi warar kale ayaa maqlaysaan daawadayaal subscribe saar oo mobilka furo Ilhaan Cumar oo si rasmi ah u shaacisay inay kala tagayaan saygeeda Axmed Xirsi xildhibaanad Ilhaan Cumar oo Koongareeska Mareykanka u matasha gobolka Minnesota ayaa dacwad furitaan ah ka gudbisay saygeeda Axmed Xirsi Ilhaan iyo Axmed Xirsi waxay isguursadeen sanadkii 2000 waxayna kala tageen sanadii 2008 waxayna dib isugu soo laabteen sanadkii la soo dhaafay ee 2018 xiriirkeena guurka waxa uu burburay si aan ka soo kabasho lahayn ayay tiri sidaasi waxa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Marwo Ilhaan Cumar waxay Ilhaan Cumar sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta waxayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wadajir ah loogu hayo saddexda canug ee ay isu dhaleen ayay tiri Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslim xijaaban xiran oo loo doortay Koongareeska Mareykanka taariikhna jibisay ayaa lagu xamanayay muddooyinkii u dambeeyay inuu xiriir jecel kala dhaxeeyo nin cadaan ah oo ka mid ah gacan yareheeda isla markaana aad ugu dhow kaasoo lagu magacaabo Tim Maynet hase yeeshee Ilhaan Cumar oo arrintaasi ka jeejeesatay ayaa inta badan waxa soo baxaya inay arrintaas run noqon doonto hase yeeshee haddii ay mar ay ninkan Axmed Xirsi ay kala tagaan laga yaabay inay soo bandhigto hase yeeshee ninkaasi sharciga wuxuu ku qabo ayay ka sheegi doontaa ama ay ku guursan doontaa dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo loogu deeqay 73 milyan oo dollarka Mareykanka ah dawladda Jarmalka ayaa ugu deeqday dawladda federaalka Soomaaliya 73 milyan oo dollarka Mareykanka lacagtan ayaana lagu taageeri doonaa hay'adaha maaliyadeed ee dawladda iyo sidoo kale tababaro lagu abuurayo xirfad kala duwan hase yeeshee lacagahaasi si fiican ama sida dawladda Jarmalka ay sheegtay ma loo isticmaali doonaa safiirka Soomaaliya u fadhiyo Muqdisho ambassador Anet Kunter ayaa shalay ballan qaaday lacagtan dawladeeda ugu deeqday Soomaaliya xilli uu hadal ay ka jeedinaysay munaasabada lagu xusayay maalinta midnimada Jarmalka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ambassador Anet ayaa shaacisay in lacagta dawladeeda ku taageeraysa Soomaaliya ay bixinayso 2 sano ee soo socda waxa uuna sheegay ama ay sheegtay in la xoojinayo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ka dhaxeeya inagoo ku taageerayna Soomaaliya wadada ay hayso Jarmalka waxay sare u qaaday taageerada horumarineed iyo iskaashiga waxayna dawladda Jarmalka ku deeqday Soomaaliya 73 milyan oo dollarka Mareykanka 2 sano soo socdo ayay tiri Kunter lacagtan dawladda Jarmalka ugu deeqday Soomaaliya ayaa waxaa loogu qaban doonaa kobaca dhaqaalaha dalka xirfadaha horumarineed oo loo sii marinayo tababaro ku saabsan farsamooyinka gacanta iyo xirfadaha waxbarasho ee dhalinyarada hase yeeshee dalka Jarmalka ayaa ku horumaray in dadka dhalinyarada soo koloodiga ah ee farsamooyin gacanta baraan hase yeeshee mar haddii ay Muqdisho lacagtaasi sida ay ugu talagalaan loo isticmaalo waxa laga yaabaa dhalinyaro aad u fara badan inay gacanta wax ka bartaan isla markaana ay ku xamaashaan dhinaca kale wararka naga soo gaaraya degmo kamid ah gobolka Hiiraan ayaa xiisad xooggan ka taagan kadib markii shalay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle oo xilka qaadis halkaas ku sameeyay xiisad culus oo ka dhalatay xilka qaadis gudoomiyaha degmada Buuliburta iyo duqiisi magaalada degmada Buuliburta gudoomiyaha degmada Buuliburta ee gobolka Hiiraan mudane Cabdi Casiis Cabdullaahi
cabdi duurow ayaa ka hor yimid xilka qaadis uu xalay ka sameeyay wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Mastar Caadle duurow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan weli soo gaarin digreeto xilka looga qaadayo sidoo kalena uusan jirin mas'uul ku soo wargeliyay in arrintaasi in xilka laga qaadayo waxa kale oo gudoomiyaha beeniyay in ciidamo gaar ah oo isaga ka amar qaata ay la wareegeen xarunta maamulka degmadaas isla markaana uu sheegay inay arrintaasi been tahay anigoo waxa uu bartiisa Facebook ku qoray anigoo ah gudoomiyaha degmada Buuliburta Cabdicasiis Cabdullaahi Duurow waxaan cadeynayaa in aysan isoo gaarin warqadii la sheegay isla markaana aysan isoo sheegin madaxda isoo magacaawday sidoo kale waxaan halkan ku beeninayaa wararka been abuurka ah oo la leeyahay gudoomiyaha ciidamada daabacsan ayaa la wareegay degmada waxaan aaminsanahay nidaamka dawladnimo oo aan shalay ku imid isla markaana nidaamkaasi aan ku baxo una hogaansano nidaamka dawladnimo ayuu yiri Duurow ase yeeshee Duurow arrintaasi waday ayaa waxa uu beeniyay gabi ahaanba in uusan ciidan halkaasi geysan khilaafkan ka taagan degmada Buuliburta oo maalmahan taagnaa ayaa ka dhashay dhismaha golaha deegaanka oo ay si weyn ugu hor yimaadeen waxgaradka degmada hase yeeshee qaar kalena ay iskaga hor yimaadeen dhanka kale odayaal kale ayaa sheegaya in ay soo dhaweynayaan halka odayaal kalena ay diidan yihiin hase yeeshee markii uu tagay horaantii bishii la soo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka ee Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayay dhammaan shacabka iyo odayaasha degmadaasi si weyn u soo dhaweeyeen in ay degmada dhisi doonaan wasiirka arrimaha gudaha oo Durad ama shalay hadlay ayaa waxa uu sheegay in marka hore Hirshabeelle ama gobolka Shabeellaha Hoose laga dhisay hal degmada labaadna ay tahay in laga dhiso gobolka Hiiraan taasina loo sameeyo balance ayuu yiri halka naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa la arrimaha Jubbaland ayaa xiisa kacsan isla markaana Axmed Madoobe ayaa laga yaabaa in halkaas caleemo saar loo sameeyo